waa mahadsantihiin anoo ku hadlayo horta magaca Hiraal oo qayb ka ah barnaamijkan kala soo qabanqaabisay inaan uga mahadceliyo dadka ka soo qayb galay. haddii aan su-aasha maaragtay waa su-aal specific ah, waxaan u daynayaa hawsha guud oo Afghanistan dadka kale jooga, laakiin labada xarakood ama labada jabhadood hadda qolo dawliba noqotayba waxay isaga egyihiin, waxay kala duwan yihiin, environmentka ay ku dirirayeen se waa sidee. waxaan rabaa marka koowaad meelaha ay ka siman yihiin inaan ku hormaro oo ay ugu horeyso waxay labadooduba dabcan waa kala da-wan yihiin, laakiin waxaa labadaba dhalay labo urur oo iyaga ka horeeyey. xaggeena al-Ittixaad maaragtay al-Islaami qolo la yiraahdo ayaa al-Shabaab dhashay, xaggana niman la dhigi jiray mujaahiduun oo Sooviyeedka maaragtay kala diriri jiray Afghanistan ayay dhalinyaro ka soo baxday. marka labadooda waxyaabay ka sameeyeen waxay ahayd inay dhalinyaro ka timid odayaal rugcadaa ah oo jihaadiyiin ah ay kasoo falarmeen. marka koowaad meesha labaad ay isaga mid yihiin waxaa ka mid ah in labadaas jabhadood oo ka horeeyey in ay xiriirkii ugu horeeyey oo ururweynaha al-Qaacida la yiraahdo, labada urur ugu horeeyey oo xiriir ay la yeeshaan bilowgii 90-yadaba in ay ahaayeen labada urur oo ay ka yimaadeen. in other words meelihii labada meelood ugu horeysay oo al-Qaacida ay saldhigato ay ka howlgasho Soomaaliya iyo Afghanistan oo meelo qaarkood North Pakistan waxaa la iskala xiriiriyaa inay qayb ka mid tahay Afghanistan. marka taas waa historicalka. labo waxyaabo ay isaga mid yihiin waxay ahayd labada urur waa labada urur oo islaami ah oo waqti dheer qayb ka mid ah dhulka ay raadinayeen inay xukunkeeda la wareegaan si physical u haystay. jabhadihii kaleeto oo islaamiga ahaa ama ha ahaadaan global ama ha ahaadaan local, waqti dheer qolo maaragtay dhul haysatay ma jirin. meelaha kale isaga mid yihiin waxaa ka mid ah in ay labaduba leeyihiin resilience oo aysan jabhadihii kaleeto oo iyaga lamid ahaa aysan muujin. kuwii ka horeeyo iyaga dhale ha noqdaan iyo kuwa hadda jira oo kaleeto ama abuurmay ama gadaashooda abuurmay ha noqday, resilience-ka ay wadaagaan. waxyaabaha ay dabcan ku kala duwan yihiin waxaa ugu horeyso ugu weyn nimanka Talibaanta ah in ay yani marna aysan muujinin ha noqoto rhetorical ama actionba, inaysan muujinin in ay xuduudaheeda wax ka baxsan ay danaheedu yaallaan ama ay danaynayso. whereas shabaab identity crisis ayaa inay haysata moodaa. inta badan dabcan dad wadaniyiina ayay iska dhigaan oo maaragtay muujiyaan inay Soomaaliya danaheeda iyo sidii ay Soomaalida ugu beer la xawsadaan, laakiin meelo badan in ay ku muujiyeen mid af ah iyo mid adin ah labadaba in ay maaragtay dhulal shisheeye ay maaragtay gacantooda gaartay. waxaan kusoo gabagabeynayaa su-aashii oo ka bilaabo maanta maxaa dhacaya. anigu waxaan aaminsanahay in same fate maantana dhacayso amaba na sugayso. haddii maanta amisom naga baxdo sidii Kabuul sawiradii aad fiirsateen kuwa lamid ah ayaa halkan ka dhici doona ama ka dhici kara. haddii xaaladda Soomaaliya dowladnimadeeda ay saan sii ahaatana anigu maaragtay dadka aaminsanaan ka mid ahay in uu sawiradaas ayna sugayaan oo kaliya lagu baajin karo sida xaaladda ay tahay hadda oo wax laga bedelo.